بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنا magacaygu yahay injineer liibaan xirsi maantay waxaan rabaa halkaan inaan ku duubo koorsadeenii inoo socotay oo ahayd architectural sida loogu bedelo structural wax badan baa ka soo hadalnay waxaan rajeynayaa inaad fiidiyowgii hore daawateen hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo transfer loadska sida loadska ay isugu gudbiyaan elementiga sida slabka beamka columnka ilaa foundationka ilaa iyo garoonka dhulka sida wada ogtihiin shayga ugu horeeya oo culayska gudbiya waxa weeye slabka wuxuu u gudbiyaa waxa weeye beamka wuxuu u sii gudbiyaa culayska waxa weeye columnka ayuu sii gudbiyaa columnkana wuxuu u sii gudbiyaa footingka ayuu sii gudbiyaa footingkana wuxuu sii gudbiyaa garoonka ayuu sii gudbiyaa marka saasay culeysyadu midba midka kale u sii gudbinayaa marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida culaysku slabka uu gudbinayo horaan uga soo sheekeynay sida loogu bedelo iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay iyo maxaa magaciisa balaankan oo kale markii lagu keeno qaabkaad ugu bedeli lahayd structural qaabka ugu bedeli lahayd balaankan waa maxay waxa weeye waa architecture weeye qof baa soo samayn kara ama adaa samayn kara haddii uu qof sameeyana qaabkan oo kale lagu keenayaa qaabka ugu bedeli lahayd structural qaabka ugu bedeli lahayd waa ka soo sheekeynay horaan u soconana maanta waxaan ka hadlanaa waxa weeye slabka qaabka uu gudbinayo loadska uu gudbinayo beamka uu gudbinayo maanta labadaasaan rabnaa inaan ka soo sheekeyno sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno partition wall muxuu yahay sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno beam qaadaya beam muxuu yahay beam qaadaya muxuu yahay baarin sidoo kale inaan ka sheekeyno caawa haddaba waxaan ka aragtaan waxa weeye beam weeye halkan waa beam weeye halkaana waxa weeye waa beam beamkan ma lahan waxa la dhaho columns ma lahan oo sida kuwaan oo kale u leeyahay oo kale sida dhakan oo kale wuxuu leeyahay laba wuxuu leeyahay muxuu ahaa support ama laba column buu leeyahay saad u taqaani laakiin midkan ma lahan sababtu maxay tahay wax yar baan rabaa inaan ku sharxo tani soo go halkaan ina keen halkaan sorry xeer baan rabaa inaan ku tuso halkaan waxa weeye slabkii waa kan halkaan waxaa uga dhigsan beam kan kalena waxaa uga dhigsan beam halkaan kalena waxaa uga dhigsan beam kale halkaan kalena waxaa uga dhigsan beam kale marka qaarkood halkaan waxaa mari kara beam ayaa mari kara halkaan beam ayaa mari kara halkaan waa column halkaan waa column halkaana waa column kale halkaana waa column kale halkaana waa column kale sida hadda kan ugu yaalo kale waxaa la dhahaa columnku beamku markuu u gudbiyo culayska beam kale si point load ah hadda muxuu ku yahay beamkan si point load ah ayuu wuxuu ku yahay beamkan kale ku yahay culayskii muxuu u gudbinayaa labadan beam uu point load ku yahay kana point load ku yahay kana point load ku yahay marka culayskii dhankaan ayuu culayskiisii dhankaan uu u gudbinayaa beamkan uu gudbinayaa beamkan uu gudbinayaa si point load ah ayuu ugu gudbinayaa marka beamkan waxaa la dhahaa secondary beam baa la dhahaa maxaa la dhahaa secondary beam baa la dhahaa secondary beam midkuu culaysku u gudbinayana maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa primary baa la dhahaa primary ayaa la dhahaa sababta primary loo yiraan waxa weeye asaga si toos ah wuxuu ugu gudbinayaa culayskiisa wuxuu ugu gudbinayaa column ayuu ugu gudbinayaa markuu culaysku beamku u gudbinayo columnka waxaa la dhahaa primary beam baa lahaa sorry laakiin markuu culaysku beamku u gudbinayo beam kale si point load ahna waxaa la dhahaa secondary beam marka saasna waa in iyadana u kala fahantaa markuusan hadaad aragtid halkaan wax point loadna ma laha laakiin halkaan markuu yahay halkaan kala la dhigo laakiinse markii columns la dhigo halkaan marka column dhigo xabad kale dhigo halkaana xabad kale la dhigo muxuu yahay marka wuxuu noqonayaa
primary buu noqonayaa sababtoo ah loadskiisii ama culayskiisii wuxuu si toos ugu gudbinayaa labadan column ayuu ugu gudbinayaa laakiinse haddii uusan wax beama wax column uusan halkaan oolin halkaana wax column oolin waxaan leenahay waa secondary beam beamkaana wuxuu ugu gudbinayaa as point load ahaan ayuu ugu gudbinayaa hadhow markaa beamka xisaabinano maxaa u qaadanaa as point load ahaan ayaa u qaadanaa culaysku gudbinayay point load ahaan ayaa u qaadanaa marka halkaas waa overview weeye xogaa beamka oo sheekeyno waxaan rabnaa marka inaan shaqadeena go'doono waxaan rabnaa inaan ka sheekeyno slabku laba qaybood baa horta si guud loo qaybiyaa waa two way slab iyo one way slab two way slab iyo one way slab maanta waxaan rabnaa laba mid baa rabnaa inaan xalino two way slabna waa rabnaa inaan xalino one way slabna waa rabnaa inaan xalino labada say culaysku ugu kala gudbin yahay laba waqtigooda inaan xalinaa rabnaa markuu slabku yahay two way slab markuu yahay slabku maxaa ku ogaanaysaa waxaa ku ogaanaa waxa weeye waa markii lx taabo lx waa maxay waa dhinaca weyn hadda kan waa isku mid ayada mid kala duwan baa soo qaadanaa kan baan waxaan ku dhegsananaa sorry kan baa waxaan ku dhegsananaa waa kana kan tusaale ku bixinanaa waxaan leenahay markii dhinaca weyn waxaa loo yaqaanaa lx ly sorry ly baa loo yaqaanaa dhinaca yarkaana waxaa loo yaqaanaa lx dhinaca weyn waa 5 dhinaca yarkaana waa 4.8 markaan isku qaybino haddii ay laba ka yaraadaan less than 2 waxaan dhahanaa slabkaas waa two way haddii lx-ta oo loo qaybiyey ly-da haddii ay ka weynaato laba ama la ekaato waxaan dhahnaa slabkaas waa one way hadda slabkaana haysanaa waa xisaabeynaa calculatorka noo soo saar halkaan noo dhig waxaan leenahay 5 oo waa ly-dii wey dhinaca weyn baa mar walba waxaa u qaybinaysaa dhinaca yarkaa 5 waa waxaan u qaybinaynaa 4.8 waa 1.04 therefore marka waxaan leenahay slabkani wuxuu noo noqday two way haddii uu laba ka badnaan lahaa hadduu laba ka badnaan lahaana waxaan u aqoonsanahay inuu slabkan yahay one way yahay laakiin hadda wax laba ka yaraada noo soo baxay sidaa darteed waxaan u qaadanaa slabkan inuu yahay two way slab shaqada koowaad aan qabanaysa waxa weeye inaad ogaatid slabkaas waxa uu yahay waa ogaanay hadda shaqadii koowaad aan qabsanay waxaan ogaanay inuu yahay two way slab inuu yahay baa ogaanay sidaa darteed maadaama ogaanay two way slab inuu yahay two way slabku wuxuu wax u gudbiyaa waxa weeye afarta dhinac oo ama beamka afarta dhinacba beamka ka xiga culayska wuu u gudbinayaa afarta dhinacba culayska wuu u gudbinayaa seebu qaab noocee ayuu u gudbinayaa marka wuxuu u gudbinayaa nooca dhinaca yarkaa hadda dhinaca yarkaa waa 4.8 dhinaca weynna waa 5 soma dhinaca yarkaa qaab triangle ayuu u gudbinayaa culayska halka dhinaca weyn oo ly-da loo yaqaanana uu culaysku u gudbinayo qaab trapezium waan ku tusayaa kaadi waan soo qaban laynkan daan tusayaa aydka nooga fur qaabkaana soo qabo dhinacaana soo qabo halkaa ku xir kanna soo qabo halkaa ku xir dhinac kanna soo qabo halkaa ku xir wakaa qaabka ly-du wuxuu u gudbinayaa culayska slabku qaab trapezium ayuu u gudbinayaa shape-kaas trapeziumka ayuu u gudbinayaa halkaana wuxuu u gudbinayaa qaab triangle ayuu u gudbinayaa waa dhinaca yarkaa marka intaas samaysatid waxaan aadanaa marka inaan loadskii aan soo saarno loadkii aan soo saarno waxaan aadanaa go to excel baa adeegsananaa ayaan soo saaranaa waa kana maantay short span iyo long span short spanku waxa weeye waa dhinaca yarkaa
long span waa dhinaca weyn waxaan soo qaadanaa long spanku intee noo ahaa 5 ayuu noo ahaa dhinaca yarkaana shortana 4.8 ayuu noo yahay markaasaan gashananaa marka waxaan leenahay waxa weeye waa 4.8 dhinacaana waxay noo ahayd 5 waaba noo tahay thickness slabku waa assume garaynanaa waxaan assume garaynanaa waxa weeye 175 badanaa haddaa ka cararaysid inaad muxuu ahaa ku dhaco baa deflection ama ku dhaci karaa marka waxaa la sameeyaa waxaa la qaataa 200 ilaa 725 marka hadda waxaan assume garaynay 175 ayaan u assume garaynay top coverka iyo bottom coverkana 20 ka iskaga deysanaysaa self weight-kan 400 waa 4.2 weeye 4.2 ga maxay ka timid 4.2 ga waxay ka timid 175 oo lagu dhuftay unit weight-kan 175 oo lagu dhuftay unit weight-kan aan ku tuso marka qaabku ku yimid 4.2 gaas baa rabaa inaan ku tuso wuxuu ku yimid 175 baa waxaan ku dhufanay unit weight-ka oo ah oo standard wax la isla yaqaano ma la isbedesho waxba kuma darsamaan waxba kama jarmaan 24 taas mar walba waa inaad xifdsan tahay unit weight of concrete mar walba inaad xifdsan tahay waa 4200 waxa weeye waa millimeter weeye millimeter macnaha kumba millimeter baan ka dhiganaa kumba u qaybinanaa waa 4.2 weeye 4.2 ga maxay marka waa self weight slabka waxaan ogaataa shay walba wuxuu leeyahay self weight ayuu leeyahay oo self weight asagu uu leeyahay baa jira adigaaga qofka bini aadanka self weight baa leeyahay marka adiga laftiga hadii la damco lagu soo saaro soo saari karaa marka laakiin hadda waxaan soo saarnay self weight-ka slabka waxaan soo saarnay 4.2 waxaa jira waxa la dhaho external load waxa weeye intaan halkaan waa sharxi doonaa way imaan doonaa external load waxa weeye waxyaabaha slabka dul saaran sida marmarka oo kale materialka oo kale haddii muxuu ahaa magaciisa meeshaan muxuu ahaa mararka qaar waxaa dhigta slabku markuu saan yahay waxaa dhici karta halkaas oo kale inta laga dhiso digar laga dhiso alaabta waxaa la saarto whatever adiga waxaasoo dhan waxaa loo qaataa 1.5 waa standard weeye waa DS code-ka ayaa sheegaya 1.5 waa standard iyada mararka qaarkoodna waa ka badin kartaa oo waxay ku xiran tahay hadba waxa aad design galinaysa ayay ku xiran tahay markaa aad 2 baa qaadan kartaa markaa aad 3 baa qaadan kartaa iyadoo ay ku xiran tahay waxa aad design galinaysa maadaama anaka guri saddexiyaal aan design garanayno waxa u qaadanayna isku badin mayno haddaan badinana design loadkeena ayaa wax badanaya sidaasan marka noogu badanin waxaan sameynaynaa 1.5 ayaa qaadanayna extra waxa la embossing loadka waa maxay waa waxyaabaha muxuu ahaa guriga slabka la dul saaro laakiinse aanan asaga macnaha la falgelin maxaa kamid ah dadkii oo kale dadkii way ku soconayaan sooma alaabtii oo kale furnitureski oo kale dadkii alaabta waxay saaranayeen oo dhan baa waxaa loo yaqaanaa embossing load marka badanaa waxaa loo qaataa si standard ah waxaa iskaga qaadaa saddex iskaga qaado laakiin iyadoo ay ku xiran tahay DS code baa jira loo adeegsado laakiin maanta waxaan u qaadanaa 3 ayaa u qaadanaa intaas oo dhan design loadku markaas wuxuu noqonayaa 12.78 ku soo baxday waa ogaanayna waxay ku soo baxday horta labadan baa isku daranaa self weight-ka iyo extra dead load-ka isku daranaa markii la isku daro waxaa ka soo baxay waxa loo total dead load waa 5.7 ayaa ka soo baxaya 5.7 waxaan leenahay 5.7 baa waxaan ku dhufananaa waxa la dhaho partial factor of safety oo 1.4 waxaa noo noqotay 7.98 baa waxaan ku daranaa haddana embossed level loadkii ama embossed loadkii oo 3 ah 3 baa iyadana waxaan ku dhufananaa 1.6 sorry saddex baa waxaan ku dhufananaa marka waxaan leenahay waa 5.7 baa waxaan ku dhufananaa 1.4 waa intee waa 7.98 meel noo dhig 7.98 saddex waxaa ku dhufataa 1.6 waxaa ku dartaa 7.98 ku dar waa 12.78 saasay kusoo baxdaa marka 12.78 therefore
meeshayni baan ku laabananaa waxaan leenahay slaabkeenu waa culayskiisu design loadkiisu waa 12.78 12.78 simple qoraalkaan loo soo koobiyey waxba la isma dhigo ajkaarka markaa outkaarka markaa adeegsanaysa waa la koobiyeyaa waa simple kana waxaan leenahay waa 12.78 12.78 muxuu noqday design loads 12.78 ayuu si guud culayskiisa u qaadayaa therefore marka waxaan rabnaa inaan ogaano sidoo kale waxaan rabnaa inaan ogaano qaybtan trapeziumka iyo qaybtan triangle-ka mid walba ahi imisuu qaadayaa halkan waa two way slab design loadkii baan soo saaranay oo 12.78 baan soo saaranay maadaama aan 12.78 soo saaranay 4.8 iyo 5.8 waa soo sheegnay waxa ay yihiin marka waxaan rabnaa inaan ogaano culayska uu qaadayo dhinaca walba beamka culayska uu qaadayo beamka culayska uu qaadayo beamka culayska uu qaadayo beamka culayska uu gudbinayo macnaha slaabka uu gudbinayo excel kale ayaan furanaa oo excelka beamka ayaa lagu xaliyaa waxa lagu ogaanayaa culayska uu qaadayo 12.7 waa noo gashan tahay 12.78 soo nama soo bixin 12.78 baa noo soo baxday laakiin ly-du waa 5 lxtuna waa 4.8 waa gashananaa meeday waxaa noo soo baxay ly-du lxtu waa 4.8 ly-duna waxa weeye 5 weeye nolku waa maxay waxa weeye waa design loadka soo saaranay therefore maxaa ogaanay marka waxaa ogaananaa waa sax waa inoo sax waxaa ogaananaa marka intuu mid walba 12.78 kaana waa design loadkeennii qaabkaan kusoo saarnayna waa kuu sharxa marka muxuu lxta maxay culaysa qaadaysaa 15 ly-duna maxay qaadaysaa 15 culays isku mid ah ayay u gudbinayaan marka waa maxay 15 may waa 15.3 iyo 15. waxa weeye 0.9 weeye 0.9 adiga waa 16 iyo 15 saan leenahay ly-du muxuu u gudbinayaa culays dhan slaab u gudbinayaa 15 16 ka dhiga 15.3 waa 16 ka dhig lxtana muxuu u gudbinayaa 15 therefore waxaan leenahay waa soo qabananaa lxtu meeday lxtu waatana wuxuu gudbinayaa 15 ayuu gudbinayaa culayskan ayuu beamku gudbinayaa ayuu slaabku gudbinayaa 15 ayuu gudbinayaa 15 ayuu gudbinayaa halka markii la joogo ly-da ama dhinaca weyn uu u gudbinayo 15 ayuu u gudbinayaa soo qaadanana haddana sorry dhankan kalena wuxuu u gudbinayaa dhinaca waa dhinacii la midkaa moogtahay dhinaca waa dhinac la mid ah 15 kaasuu u gudbinayaa halkaana muxuu u gudbinayaa 16 ayuu u gudbinayaa 16 ayuu u gudbinayaa 16 ayuu gudbinayaa culaysdan waa dhinaca ly-da wey dhinaca longiga wey dhinacan kalena waa la mid iyadana muxuu u gudbinayaa 16 ayuu u gudbinayaa waa dhinacii la mid ahaa ly-da la mid ahaa saasaa marka mid walba igu qoraysaa marka hadda waxaan ka sheekeynay waa wuxuu ahaa 2 way ayuu ahaa slaab saasuuna ugu gudbinayaa beamka culaysku ugu gudbinayaa marka hadda waxaan rabnaa isla aragno one way slab ayaan rabnaa isla aragno simple one way slab waa kana weliba 10 muhiim ah halkan ku jira halkan waa one way slab maxaan ku ogaanaa inuu one way slab yahay wax xisaabeynaa lxtiisa waxaan u qaybinaa labo whereas my calculatorkii aan la soo baxayaa halkaan baa imaanayaa waxaan leeyahay 5 waxa u qaybisaa labo waa 2.5 therefore maadaama 2.4 noo soo baxday labana ay ka weyn tahay waxaan leenahay slaabkeenaas waa one way slab saas wuxuu ku noqday one way slab marka waxaan rabnaa inaan xisaabino one way slab intaanan bilaabin slaabkana
waa inaad marka hore iska soo fiirisaa architecturalka wax wall ah miyaa halkan ku jira wax wall ah miyaa ku jira daayada wax wall halkan kuma jirin waxaan rabnaa iska soo fiirino marka islaabka xisaabinna hadda waa kana wall baa ku jira wall baa ku jira wallkan marka waxaa la dhahaa partition wall baa la dhahaa wax culaysa looma qaadayo partition wallna waxaa la dhahaa waa derbiga aanan wax biima marayn ogtahay meel walba inaad biim marsiisid waa ma fiicna cost ahaanna ma fiicna oo lacag ahaan lacag qarash badan baa ku gelaya haddaad gurigaagu dhan wada biim ka dhigtid meel walba haddaad biim marsiisid lacagta ayaa kugu badanaysa marka engineeringkuna waxyaabaha ugu muhiimsan uu ka fikero waxay ka mid tahay waa quality-ga iyo costiga marka si aadan costi badan uusan kugu bixin waa inaadan gurigaaga all ka wada dhigin biim aad ka dhigo ka wada dhigin mararka qaarkoodna partition wall waa adeegsataa halkan waxa weeye marka waa partition wall marka partition wallka wax culaysa nooma qaadayo laakiin waxaan ku daranaa waxa weeye slaabkaan ku daranaa slaabka ayaan ku daranaa waa xisaabsananaa kan waxaan la soo baxanaa excelkeennii lx2 waa dhinaca yarka labay noo ahayd ly-duna waxaa noo ahayd 5 ayaa noo ahayd iyadu waa kaba fiican hadday halkan baa ilaaway halkan waxaan rabaa inaan iyada inii sheego halkan waxa weeye continuous iyo discontinuous continuous waxa weeye islaabkaagu hadduu dhinacan islaab kale ka xigo waxaa la dhahaa continuous baa la dhahaa haddii islaabkaaga uusan dhinacan wax islaaba ka xiginna waxaa la dhahaa discontinuous baa la dhahaa hadda marka islaabkeena rabnaa soo eegno islaabkeenu waa kanaa dhinacan islaab miyaa ka xiga islaab baa ka xiga dhinacan islaab baa ka xiga laakiin dhinacan wax islaaba kama xigo macnaha waxa weeye dhinaca shortiga oo ly-da ah dhinaca lx macnaha dhinaca lx tahi hal dhinac ayaa continuous ah hal dhinacna waa discontinuous dhinaca muxuu ahaa lx-ta waa asna waa ly-da labada dhinac waa laga xigaa ly-da labada dhinacba waa waxa weeye waa continuous weeye ly-da labada dhinac waa maxay waa continuous laakiin lx markii la joogo hal dhinac baa wuxuu yahay waa dhinacaan islaabka isku xigin waxaa la discontinuous halkan islaab kalaa ka xiga waxaa la dhahaa continuous baa la dhahaa halkan baa imaanayaa haddii marka uu islaabkaaga hadda lx-taydu waa tanaa lx-taydu waa 5 soo maa labada dhinacba waa maxay 1 iyo 3 waa continuous weeye islaab baa ka xiga waa 1 waxaan leenahay waa c waa maxay waa continuous iyo 3 oo continuous ah laakiin markii la joogo ly-da markii la joogo laba ayaa waxay tahay continuous laakiin 4 dhinacan geeskan wax islaaba kama xigo 4 waxaan leenahay marka discontinuous ayaan leeyahay islaabkeyga marka uu kaawaba dhan yahay sheegayso ly-da labada dhinacba islaab baa ka xiga laakiin lx-ta hal dhinac ayuu islaab ka xigaa dhinaca kale wax islaaba kama xigo markuusan wax islaaba ka xigin waxaa la dhahaa discontinuous baa la dhahaa marka islaabyo waa jiraan afarta dhinacba aan wax islaaba ka xigin ama hal dhinac laga hayo iyo cantilever baa la dhahaa laakiin maba jiri karaba dee islaab afarta dhinacba mararka qaarkood maba la arka laakiin waxaa jira islaab hal dhinac laga hayo islaabkaasna waa ogaan doonaa cantilever islaab baa la dhahaa shaqadeena sii wadaana intaa waa fahantay soo ma halkan marka waa isla intii oo kale shaqada waxaa ka bedeli mayno 175 baan qaadanaa intii hadaayan ka soo marnaa qaadanaa dhishaynku waa isla intii marka 12 bounty 7 waa intii waxba ka bedeli mayno marka hadda intaa waa fahantay soo waxaan rabnaa marka inaan xisaabino one-way islaabka inaan xisaabinaa rabnaa one-way islaab ayaa rabnaa inaan xisaabino one-way islaabka isaga gacanta ayaan ku qabanaynaa iyo saar baashi sorry waxaan ku qabanaynaa gacanta ayaan uga shaqaynaynaa waa kana islaabkaan doonanay waa kana islaabkii waa kana waxaana sidoo kale soo ogaanay
markaan structure architecture tagnay waxaan soo ogaanay inuu halkan ku jiro partition wall inuu ku jiro hadayta soo ogaanay hadayta waa inuu dhahay mar walbaahi waa inuu ku ag yaalaa architecture-ka wuxuu soo sameeyey ama dhismaha soo sameeyey mar walba inuu ku ag yaalaa haddaad haysan xaajada ugu xumaanaysaa therefore marka waa tegaynaa waa xisaabinaynaa marka waxaan leenahay horta ly ly-du waa intee ly-du waa 5 lx-tuna waxa weeye 2 صح height-ka waxa u qaadanaynaa isla intii 125 baa u qaadanaynaa extra dad load-kana waxa u qaadanaynaa 1.5 waa isla intii 1.5 ayaan u qaadanaynaa sidoo kale imposed load-ka ama waxa loo yaqaano qk haddaan afkeena ku wada hadalno qk waxaan u qaadanaynaa 3 ayaan u qaadanaynaa therefore marka haddaan rabnaa soo ogaano self weight-ka maxaan leenahay 175 oo waxaan ku dhufanaa density of concrete ama unit weight of concrete-ka mar walba waa inaan maskaxda ku haysataa unit weight of concrete-ku waa inaan mar walba maskaxda ku haysataa calculator-kayga la soo baxayaa waxaan leeyahay 175 lagu dhuftay 24 dayto 4.2 ayaan ka dhigaynaa 4.2 baa waxaan ku daranaa haddana 1.5 baa ku daranaa waxaan ka kaga tagay 1.5 kan waa extra dad load soma waa extra dad load halkan laakiin waxa ku jira partition wall ayaa ku jira maadaama partition wall halkan ku jiro 4.2 iyo qor partition wall maadaama uu ku jiro waxa la dhahaa partition wall-ka waxa u qaadananaa 1.5 isaga 1.5 la iskuma badiyo 1.5 waa maximum hadda xisaabisidna wixii ku soo baxun baa wax xisaabin kartaa waxa ku xisaabin kartaa waxa weeye ama 1.5 na waa la qaataa ama xisaabta wixii ku soo baxa baa la qaataa هذا هو حسابنا muxuu ahaa partition wall ayaa xisaabinaa partition wall halkan noogu jiraa halkan ayuu noogu jiraa waxaan leenahay thickness-ka wall-ka oo lagu dhuftay height-ka thickness-ka oo naqana waa 0.2 soo wall-ka darbigeena 0.2 loo yahay wax ku dhufanaysa height-ka height-ku waa intee height waxa weeye halkan 0.2 waa ka jir waa intee waa 1.8 baa waxa ku dhufanaysaa unit weight of wall waa intee waxa weeye ama unit weight of brick wala waxa laga brick baa laga soo unit weight of brick waa intee waa 20 isna waa inaad dusha ka haysaa waxyaabaha waxa weeye inuu qofku ku yahay inuu dusha ka hayo muhiim tahay unit weight of density waa 24 markuu brick yahayna waa 20 baa waxa ku sii dhufsanaysaa haddana partial factor of safety oo 1.4 ah baa waxa u qaybinaysaa area-da meesha aad rabtid partition wall-ka meesha ku jiro area-deeda waa intee waa 2 lagu dhuftay 5 saasna ku saara kartaa oo wixii ku soo baxa waa qaadan kartaa ku darsan kartaa waa simple 1.5 waa qaadan kartaa hadda bal aan xisaabino bal calculator-keygii waxaan sameynaynaa 0.2 oo lagu dhuftay 1.8 oo lagu dhuftay 20 oo lagu dhuftay 1.4 waa intee waa 10.08 baa waxa u qaybinayaa area-da waa aqaana soma waa 10 oo 5 lagu dhuftay 2 waa 10 baa u qaybinayaa 10 waxa u qaybinayaa 10 ayaa u qaybinayaa waa 1.08 saanna waa u xisaabsan kartaa 1.08 waa ama 1 ka waa qaadan kartaa ama si standard ah oo 1.5 baa qaadan kartaa hadda waxaan qaadanaa inta ku saarnaa qaadanaa marna waa inta xisaabteena qorsoonay xisaabteena qaadanaa waa 1 partition wall waxaan soo baxay 1 baa soo baxay 1 ka maxaa ku daraysaa marka extra dad load-kii baa ku daraysaa extra load jaha 1.5 baa qaadanay oo horaan kuu sheegay waa BS code weeye BS code
waxaan ku darsanaa hal baan ku darsanaa waa intee waxa weeye waa 2.5 macala partition wallkeeni muxuu noo noqday 2.5 ayuu noo noqday maxaan ku daranaa marka 2.4 kaas self weight waa ugu daranaa self weight kii baa hee ku darsanaynaa muxuu noo noqonayaa marka 6.7 ayuu noo noqonayaa 6.7 muxuu noo noqonayaa 6.7 therefore marka waxaan sameynaynaa akan bacalaamasanaa akan baranaa kusii dhamaystirno 6.7 oo lagu dhuftay 6.7 oo lagu dhuftay partial factor of 1.4 ah oo lagu daray imposed load ama live loadka oo lagu dhuftay 1.6 intaasaa la iska rabaa qiimaheeda calculatorkayga meeyey calculatorkayga la soo baxayaa waxaan leeyahay 6.7 oo lagu dhuftay 1.4 waa 9 bounty meel baan ku qoranayaa 9.98 9.98 9.38 way ahaa sorry 9.38 9.38 soo maaha 3 baa hadda waxaan ku dhufanayaa waa live loadkii 1.6 oo ah partial factor of safety waxaan ku daranayaa 9.38 waa 14.14 culayskii slaabka uu qaadayo waa maxay waa 14.14 صح ما 14.18 sorry 14.18 ayuu qaadayaa therefore marka islaabkeena u imaanana waxaan leenahay culaysku uu qaadayo waa soo koobiyeynaa tan baa soo koobiyeynaa halkaan baa dhiganaa waxaan leenahay culayska sale loadka uu qaadayo waa maxay waa 14.18 waxaa ogaanaysaa markii la joogo one wayga laba dhinac two sides ayuu culayska u gudbiyaa waa dhinaca weyn ayuu u gudbiyaa halkaan baa kugu sharaxayaa dhinaca weyn ayuu u gudbiyaa waa kana hadda dhinacaan haddaan rabno kan baan kasoo koobiyeysanaa nawmaata kan baan kasoo koobiyeysanaa haddaan rabno marka outkaarka markaa isticmaalaysid mar walba waa inaad wax soo koobiyeysataa si ay shaqadu kugu fududaato waqtigana uusan kugu dheeraan waa kana dhinacaan macnaha dhinaca weyn buu wuxuu u gudbinayaa dhinaca weyn buu mar walba culays u gudbinayaa dhinaca kalena waa la mid dhinaca kalena mar walba waa la mid marka dhinacaasu culays u gudbinayaa marka waxaan rabaa inaan soo saarno marka dhinacaani culaysku u gudbinayo iyo dhinacaan culaysku u gudbinayo laba wey baa marka lagu soo saaraa laba wey ayaa lagu soo saaraa meesheena nagu celi laba weyna waa wey fudud weyna xoogaa wada dheer baa marasaa marka waxaan rabaa inaan weyga fudud ku tuso dhinacaan ly-daahi qaabku ugu gudbinayo baa rabaa inaan ku tuso waxaa lagu helaa horta waxaan rabnaa soo saarano halkan eriyadeeda rabnaa soo saarano dhankan eriyadeeda baa rabnaa intaan eriyadeeda baa rabnaa soo saarano intaan eriyadeeda baa rabnaa soo saarano macnaha centerkaa tegaysaa center markaa tegtid intaan eriyadeeda baa rabnaa eriyadeeda maxaan ku heli karnaa waxaan leenahay eriyada waxaan ku helanaa
area intaa waxaan ku helanaa w oo lagu dhuftay lx-ta oo loo qaybiyey 2 w-da oo waa weight-ka hadda aan soo helnay waxaan soo helnay 14.18 soo helin baa waxaan ku dhufananaa lx-ta waa 2 soo maaha waa 2 distance-geeda waa 2 oo loo qaybiyey 2 waa intee waa isla intii de 14.18 dhinac walba muxuu u gudbinayaa ly-da dhinacaana muxuu u gudbinayaa 14.18 dhinacaana muxuu u gudbinayaa 14.18 si kalena waa kusoo heli kartaa oo laakiin waa wado xoogaa dheer sorry waa wado xoogaa dheer wadadaas maxay tahay iyadana waa inaad iyadana maskaxda ku haysa wadada maxay tahay wadada waxa weeye halkan centerka soo maaha centerka 2 baa maxay noqonaysaa marka waa lx-ta oo loo qaybiyey 2 oo lagu dhuftay dhinaca weyn dhinaca longiga ah wuxuu ku soo baxay sooma dhinaca longiga waa intee waa 5 soo maaha waa isla 5tii bayaan xisaabin waa 2 u qaybiyo 2 waa hal ku dhufo waa 5tii 5taas ba waxa ku dhufanaysaa design loadkiya ama weight-ka ku dhufanaysaa waa 14.18 14.18 ku dhufo waxaan leenahay 14.18 waxaa ku dhufataa 5 ku dhufo 70.9 waxa u qaybisaa dhinaca weyn oo 5ta u qaybi 14.8 waa isla sidii u soo baxaysaa 70.8 haddii loo qaybiyo 5 maxaa soo baxay isla intii waa soo baxaysaa wadadii un weeye wadadaas baa marna dheer marna weyn laakiinse qaabkaana waa ku heli kartaa qaabkaana waa ku heli kartaa laakiin qaabkaana kaaga fudud formulada oo w ku dhufanaysid marka beamkani marka waxaan leenahay beamkan wuxuu qaadayaa waxaan leenahay beamkan culays kugu gudbinayo waa isla intaa 14.8 kaas ayuu gudbinayaa halkaana wuxuu gudbinayaa 14.8 waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontid dhammaanna saasaa looga shaqeynayaa aad bay mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu